Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadlaynaa gooshii difaacatay carruurteeda. Hooyo mar walba waa hooyo. Gool aad u geesisan ayaa difaacatay carruurteeda. Cadow soo weeraray ayayna ka difaacatay. Ku soo dhowaada mowduuca maanta. Sheekada gooshii ilmaheeda ka difaacday aar iyo gool wada socda ayaan maanta ka hadlaynaa. Mar walba wadajirku waa arrin muhiim u ah noolaha. Gooshan iyo carruurteeda waxaa muddo ka maqnaa aarkii ka dhalay carruurtan. Maqnaanshaha aarka waxay sahashay in cadowgu soo weeraro goosha iyo dhasheeda. Inta uusan weerarku dhicin waa kuwan ayagoo dhanka sare u sii socda. Gooshana way dareentay in weerar lagu yahay, isla markiiba diyaargarow ayay gashay si ay ilmaheeda uga badbaadiso aarka iyo goosha weerarka ah. Weerarka waxaan ku aragnay in ay iska difaacday duulaankii. Markaan waa iyadii iyo carruurteeda oo raadinaya wax ay cunaan. Sida muuqato, halkan ayay ku weliimaysatay lookisi yar. Muddo kadibna waa ay isaga soo tagtay. Lookisidii la cunay saaxiibadeeda waa kuwan kor ka fiirinaya cadowgooda, isla markaana ay u muuqdaan kuwa aan waxba qaban karin. Goosha iyo carruurteeda markaan way wada joogaan oo waxay sugayaan aarkii dhalay cagabaruuryada. Cagabaruuryada waa dhallaanka yaryar ee libaaxyadu dhalaan. Inta ay yaryar yihiin ayaa magaca loogu yeeraa. Muddo kadibna waxay qaadanayaan laba magac midkood. Haddii uu lab noqdo, cagabaruurku waxaa loogu yeeri doonaa aar. Sidoo kale, haddii ay dhidig noqoto, marka ay weynaato, waxaa loogu yeeri doonaa magaca gool. Hadda waa ay isku ciyayaan dhawaq ay iyagu isla fahmayaan si ay isku helaan. Waxaa meel fog ka soo ciyaya waa aar ka dhalay cagabaruuryada. Hadda way midoobeen oo waa kuwan isla jooga. Markaan aarka waxaa la barayaa carruurtiisa. Qoyskan libaaxyada waxaa wehelisa gool kale. Dabcan goosha kale qoyska ayay ka mid tahay. Ugu dambayn, daawadaha sharafta leh, waxaan ku su'aalayaa, weligaa si toos ah ma u aragtay libaax ama xayawaanada duurjoogta ah? Haa, anigu dhurwaa ayaan arkay, balse adiga jawaabtaada waan sugayaa. Fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid channelka. Sidoo kale like saar muuqaalkan, share-tana ha ka hilmaamin. Intaasi waan kala mudannahay. Waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.